السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا يوتيوب channel كينا Somali Youth Scholars. هدي أي تايم مركو كوريسي أو يوتيوب كينا تصوبه تسودو. يوتيوب channel كان هو يوتيوب channel أن وقت القلني إن والله لين Soomaalida أن وقصو قد بينو سيدا لو حارستو دقيقة وحبرشو يسيدو كلا سيدا لو هلا فيزوينكا دلالكا بريكينكا يسيدو كلا دلالكاني يوروب كندا. إن شاء الله waxyaabaasi waxyaabo la mid ah ayaan ku soo gudbinaa hadii aan u gudo galno maanta mowduuceena insha Allah waxaan isla eegi doonaa sida loo buuxiyo form lagu magacaabo DS260 marka koowaad hambaliyo walaaleen Soomaaliyeed oo ku guuleystay sanadkani baqtiyaan nasiibkii DV Lottery-ga hambaliyo ayaan idin leeyahay mar labaad waxa waaye baqtiyaan nasiibkan waa dadka aan ogeyn yani waa baqtiyaan nasiib sanadla ah oo ay bixiso dawladda Mareykanka oo ku sahlayo in aad dalka Mareykanka aad tagtid insha Allah waxa isla fiirin doonaa formkan iyo sida loo buuxiyo dhamaan wadooyinka aad mar lahayd sida uu fudud waxaad booqanaysaa si aad u buuxisid formkan DS260 website-kani insha Allah website-kan qaybta hoose ayaan soo dhigi doonaa linkiga si aadan ugu wareerin qaybta hoose insha Allah aad ka heli doontaa formkan si aad u buuxiso waxaad u baahan tahay case number-kaaga saan rajaynaya dadkani oo u soo baxay DV Lottery insha Allah way fahmi doonaan kulli waa fahansantiin saan rajaynaya case number-kaaga wuxuu yahay iyo sidoo kale confirmation number-kaaga confirmation number-ka waa number-kii markii aad result-iga jawaabaha aad fiirsanaysay number-ka aad ku fiirsatay case number waxa la yiraahdaa confirmation number-ka case number-kaagana waa number-ka hadda ay haysatid yani oo number-kan wuxuu yani metelaya yani number-ka aad ugu jirtid guuleysiga yani mesela sanad walba waxay soo aqbalaan ilaa iyo dad gaarayso 80,000 meelahaas gaaray laakiin waxay ka qaataan 55,000 marka adiga dadkaas 80kaas kun 500kaas kun numberkee ka tahay 1 ma ka tahay 2 ma ka tahay 3 ma ka tahay 4 ma ka tahay 100 ma ka tahay 200 ma ka tahay 50 ma ka tahay markiis numberka waxa soo sheegay numberkaas soo sheegay hadaa ka tahay 100 kiis numberka haduu yahay 200 macnaheedu waxa waaye yani qofka 200aad ayaa tahay guuleystaha qofka 200aad sarjana waa fahantay insha Allah kiis numberkaaga wuxuu ka bilaabanayaa yani mesela 2020 AF soo waxa la socoto 0 3 0 la socoto marka 3 0 ha ku darin oo ka bixi 3 0 waxaad qortaa lambarka oo nadiif ka dambe maxay jir mesela 2020 AF 000 100 ka soo qad case numberkaaga waa sidan marka waxa sameynaysaa 0-kan script waxaan qaaday 2020 AF 100 sidaas form case numberka ku gelinaysa then waxa leedahay continue so marka aad ay continue adheed wuxuu ku keenayaa meeshani insha Allah waxa gelin doontaa meeshan case numberka soo gelin waa kana magacaaga u dambeeya mesela hadii lagu dhaho Yusuf Ali Muhammad waxa gelinaysaa magacaaga u dambeeya Muhammad ka gelinaysaa kasoo qad magacayga u dambeeya waxa waaye kasoo qad waxa waaye magacayga Ali Amal kasoo qad mise Abdi Amal kasoo qad magacayga waxa waaye Abdi meeshan waxa idin ku tusi doonaa tusaale yani sidee yani aniga si sax meesha uma gelinay yani information aniga hadda numberkan case numberkan waa case number yani been meeshan ku qorayaan tusaalan si ay u fahantiin dhawad process-kan dadayna u martiin marka sarjana waa ila fahanteen marka application number ka surname-kaaga mise Abdi waaye sidoo kale meeshaan waxay gelinaysaa taariikhda aad dhalatay meeshaan waxa waa day maalintii afraad bishii maalintii shanaad taariikh 4 sanadkee dhashay waxaan dhashay 2000 waxaa dhashay ka soo qaad 1999 waxaan dhashay 1999 oo kale iska dheh markaa dhahay soo meeshaan waxay gelinaysaa
confirmation numberkaaga adiga aqaano wax ungeli mesela kasoo qaad sansan then confirmation kaaga markay gelisid meeshaan imow waxaad doorataa applicant meeshaan waxaa ka doortaa applicant ka dooro sidoo kale numberkan security code kaanane meeshaan dooro igeli HAXBCE marka dhahdeen waxaad taabanaysaa okay yani continue siiwad okay wuxuu ina keenayaa meeshaani marka waxaa laga baahan yahay inaad si fiican iskaga fiirisid then waxaad sii taabanaysaa meeshaani start now ay ku qoran tahay then formka waxaa loo baahan yahay markii waxyaabaha oo dhan inaan buuxino inshallah waxaan u dhan isla eegi doonaa waan wada buuxin doonaa qaybta koowaad oo ah inaad aqbashid qoraalada iyo shuruudaha page yani formkani ayaa laga baahan yahay then waxaad taabanaysaa meeshaan aqbal sidoo kale qaybtani waa meel adiga si gaar ah kugu muhiim ah waa meeshii aad ka dooran lahayd interviewga meesha aad ku gal lahayd wareysiga safaaradda aad rabtid inta aad ka dooranaysa hadii maanta aad yani dabcan wadankaaga aad joogtid oo safaaradda ay ku taalo Mareykan kasoo qaad mesela Kenyaati ayaan ahay dabcan safaarad Mareykan ay ku taalo dalka Kenya automatic wuxuu ku soo saarayaa yani wadanka iyo safaaradda ku dhow oo aad ka heli kartid interview ku gali kartid hadda tusaalahan anaga Soomaaliya maanta maadaama aysan ku taalin safaarad Mareykan ah laakiin waxay ku base gareysanta ay ku taalaa oo Soomaalida howlahooda loogu qabtaa markay imaato fiiso waxyaabahaas la mid ah safaaradda dalka Mareykanka ee ku taalo Kenya marka automatic ahaan uu ku siinayaa marka Soomaali safaaradda ay ku base gareysanta Nairobi Kenya marka meeshan 3 option ku qoran hadii aad rabtid interviewga in wadanka Kenya yani meesha hadda safaaradda Soomaali ee Mareykanka ay ku base gareysanta hadii aad rabtid inaad ku gasho interviewga waa dooranaysaa yes schedule my interview there yani day waxay u dhigantaa halkan Kenya Nairobi sidoo kale hadaadan rabin oo aad rabtid safaarad kale inaad ka dhigtid mesela Addis Ababa Djibouti haddaad rabtid inaad ka dhigtid sidoo kale xataa no I want to be scheduled in meeshana dooranaysa wadanka aad rabtid kasii doorana wadanka aragso mesela kasoo qad Soomaaliya anahay waxaan ku noolahay dalka Turkiga waxaan u baahanahay in interviewga aan ku galo dalka Turkiga so inta ay ka dooranaya Turkiga ay qoranaya then waa helaysaa marka interviewga meesha aad wadanka aad ka dooranay saarjana waa fahanteen qaybtan kale no I am in United States meeshan waxa waaye waa dadka ku nool يعني كونول يعني sababo caafimaad sababo waxbarasho dad u taga oo waxa jira dalka Mareykanka joogo oo xareystay baqtiyaan nasiibkan sidoo kale ku guuleystay marka hadii dadkaas ay kamid tahay adigana waxa dooran kartaa qaybtan no I'm in the United States and I want to adjust status without leaving the United States marka dadkani oo dalka Mareykanka joogo oo ku guuleystay formkan baqtiyaan nasiibkan iyaga loogu talgalay inay xareeyaan marka formkan DS260 marka iyaga form kale jira ee loogu talgalay inay buuxiyaan marka formkaas waxa ku leey si gooni insha Allah sana u sheegi doona iyo hadii aad u baahan tahay formkaas inaad wax ku ogaatid fadlan comment iigu soo qor marka insha Allah sayna waan ka soo hadli doona soo marka aniga mu baahnina meel kale aan ka dhigto maadaama Soomaaliya hadda ay joogo safaaradda igu dhawna ee tahay Kenya Nairobi aan ka dhigana insha Allah waxaan leeyahay markii yes schedule my interview there ayaan leeyahay then continue ayaan sii leeyahay marka inta imaano waxaa loo baahan yahay si gaar ah in sidoo kale inta iska fiirisid waa shakhsiyad ahaantaadii magacaaga surname-kaaga geli waa magacii awowga magacaaga saddexaad automatic aan asoo ku geliyo given name magacaaga asaabahan automatic aan ku gelinaa magaca so full name in native alphabets meeshaan anaga waxa wax banaga maquseen yani waxa loo talgalay dadka mesela China amal yani qoraaladooda magacyadooda si nooc kale loo qoro hadii jirto si nooc kale in loo qoro magacyadooda yani si nooc kale hadii jiro oo native aan English yani Latin wax ka duwan xarf ka duwan hadii loo qoro inta ku qoro way maadaama anaga xarfahan ay yihiin Latin marka waxa uma baahani marka waxa la does not apply
asare tick sare. So have you ever used another name magac kale weliga ma isticmaashay يعني magac oo diimeed magac noocaas aan weliga ma isticmaashay amal have you ever used another names marka hada isticmaashay adiga ku taala hadaad isticmaalin no iskari hadalkan iskaga soo gaab marka waxyaabaha qaar kan iska ilaali yani wuxuu bayaas iskaga carin yani inaad si gaar ah u fiirsid way muhiim waay so no ayaan dhahay yani have you ever used other names weliga magac kale ma isticmaashay ma imaan isticmaalin maxaa tahay meeshaan yani dumar ma tahay mise nin rag baa tahay waa ka dooranay sidoo kale maadaama nin ahay nina meeshaan ku qortay meel sidoo kale meeshaan current marriage status meeshaan waa meesha ka dooranay hadaa guursatay hadii aad weli yani aad guursanin hadii qof la soo furo aad tahay yani intaad ka dooranaysaa waana muhiim mesela hadii aad ku soo qorto formkaagi hore baqtiyaan nasiibka inaad guursatay fadlan meeshaan ku cadeey inaad guursatay hadii formkaas hore ku soo qortay inaad single ahead sidoo kale single ku qoro maadaama ani hore aan u soo guursanin formkayga hore aad ku soo qortay single ina ahay hadana single aan ku qornaa inshallah meesha aad ku dhalatay iyo taariikhda aad dhalatay taariikhda dhashwaatana si toos ah ay igu galiye wax uma baahni bina mar labaad ku celiyo city of birth meesha ku dhashay ka soo qaad waxaan ku dhashay Mogadisho ayaan ku dhashay Mogadisho qasabna maal waxaa gaar ah iskaga fiirsaa baasaboorkaaga wax ku qoran oo saxda ah baasaboorkaaga taariikhda yani wadanka ku dhalatay oo saxda ah wadanka iyo magaalada uu dhalatay mesela aan Mogadisho ku qortay Mogadisho iskaga qoran baasaboorkaaga fiiri meesha ku dhalatay meeshaas ay ka arkaysaa saarajena waa elephant sidoo kale meeshaan waxaad gelisaa oo aad si fiican u fiirisaa state of province of birth meesha aad yani magaalada uu sii dhalatay yani xaafadda uu dhalatay Mogadisho sidoo kale country region of birth wadanka ku dhalatay yani Soomaaliya waa dabcan Soomaaliya ka dooranaysa meeshaan so angeli meeshaan ku dhashay city of birth magaaladan ku dhashay ka soo qaad baasaboorkayga uu qoran yahay mesela Kismaayo xaafadda ugu dhashay suuqa weyn wadanka ku dhashay Soomaaliya then marka buuxisid halahani waa qaybtan waa personal yani shakhsiyadaada meesha magacii awgaaga magacayga dhameystiran meeshaan wax native alphabet yani magacaaga xarf kale loo qorma jirto sida nooc kale oo aad baasaboorkaaga waxyaabaas kugu qoran yahay no malihin wax noocaas have you ever used another name buliga magac kale ma isticmaashay maya meena isticmaalin maxaa tam dumar ma tahay misrag dabcan raga ah waa doortay ma guursaday mise maanan guursanin soo kale taariikhda dhashay iyo meesha ku dhashay taariikhda dhashay waatana sidoo kale city of birth magaalada ku dhashay oo baasaboorka kugu qorantay baasaboorka kugu qoran ku qor dabcan meesha ku dhashay yani province of birth yani meesha ku dhashay yani Kismaayo meesha uu sii inta meesha uu sii xaafadda ma garanayo yani meesha baasaboor waxna kuma qoran kulay waxaan ku qoraa suuqa weyn amal meel adiga ka dhumeeyna wax ka dhumeeyna amal iskaga qor country region of birth wadankaas aan dabcan Soomaaliya then waxa dhada next personal qaybtani waa un islaamiyay su'aalihi ya socdo soo markii waxay ku weydiiyeen country region of origin yani original wadanka ka soo jeedid dabcan original waxa ka soo jeeda dabcan Soomaaliya qorna provide the following information on your travel document-gaaga meeshan ku cadeey yani passport haysta passport ku qorna passport doorna marka passport doortid waxay ku weydiin doonaan document ID waa passport number-kaaga so passport number-kaaga waa B00978 then country
authority that issued document yaa wadanka baasaboorkan soo saaro oo iska leh Soomaali waaye Soomaali dooro taariikhda baasaboorkan la bixiyo mesela taariikh 4 bishii shanaad 2021 la bixiyo taariikhda uu dhacayo taariikh 5 bisha afraad 2026 sida saxda kugu qoran gili baasaboorka kugu qoran then su'aashan waxa waaye baasaboorkaaga hooyo yani dalka Soomaalikiis baasaboorka baxsan ma haysta yani baasaboorka inta ku cadeysmeen baasaboor kale ma haysta yani wadan kale dhalasho ma haysta hadii haystid ha qor then marka ha dhahdid waxay ku leeyihiin in buuxsidii kaaga baahan yihiin meeshaan akhbaaradkan baasaboorka loo akhbaaradkiisa inay geysid hadaadan lahayn no iska dheh yani ma bilihid bilaa ku lug Soomaan anigana ma lihin then waxa taabanaysa address and phone number aan u gudubno qaybta inoo xigta qaybtani waa waxa inoogu baahan inaan ku qorno akhbaaradkeena sida telephone numberdeena iyo ciwaanadeena yani meesha aan ku noolnahay hadda addresskeena inaan ku qorno ayagu loo baahan yahay present address meeshan ku noolahay hadda dabcan waa Soomaali waxaan ugu noolahay ka soo qaad Kismaayo suuqa weyn يعني أدريس هذا اللوبين هدوني حسوسن كرتد يعني Soomaali هذا ما أنت أدريس توصل يعني عمان توصل أد قف أو صوت المامتد أو يعني جوجل ماب وشقينا يمجري يعني أدريس كون تلمامي مقعي كسعنا مركز أو كذا قياس عن كسماي ماشي كده جنتهاي كسماي وحين كده جنا سوق وين عمله كده جناه so street وضد ده ويا يعني وضد بحارة تسكي قرب طبعا لو وضد and so عاصمة وعاصمة مقالة كسمايو so mention state province iyo postal code zip code يعني مهمة واسكيتي كرتا marka adaa garanay addresski meesha ka digantay magaalada ciwaanka kulay waa faanta muhiimada gudanta kaleena soo wadanka wadankaasi dabcan Soomaali waay Soomaali aan doorno addresskani yani ciwaankan hadda ku soo qortay ilaa muddo meeqad ku nool meeq sano amal sanooyin miya bilooyin miya waxa ku noolay ka bilaabato May bishii shanaad sanadkee waay sanadkii 2019 ka bilaabato 2019 bisha ka bilaabato bishii shanaad ilaa 2019 ay ku noolay meeshan ciwaankan marka ciwaanka xilliga ku noolay caday meeshaas waxyaabahan aad qoraysid si gaar iskaga fiiri waxyaabo yar yar aad isdhiinin waxaan su'aal kama iimaanayn hadhow su'aalkaaga iimaanaysa marka aniga hadda idin la hadlaayeen waxa waaye meelaha miska formkan ma aan form iska apply gareynay oo idinka idin tusaayo waxaan hore u soo maray oo aan khibrad aan u leeyahay waay marka iska taxadir waxyaabahan camal ay isdhiinin waxa uu ku weydiinay way ku weydiinay marka waxyaabaha beent iyo qaladaadka iska ilaali wax yar ay isdhiis wax ma maahan wax weyn ku noqon kartaa so previous address sidii hore meelaha hore u degneedo kale meeshan ay ka baahan yihiin bala aqran have you lived anywhere other than this address since the age of 16 ka bilaawday da'da 16 mu ku noolaatay yani address kani kor ku soo qorto ka baxsan hadii aad ku noolaatay haade hadii aad ku noolaanin mayde hadii aad haadhahdid waxa waa addresska ku soo noolaatay hore ugu nooleed iyo ku weydiin mesela Muqdisho ku kortay oo ku weynaatay aad ku nooleed ilaa ii da'da 16 sano markay jirtay 16 sano markay gaartay da'daada mise adiga waxaad u wareegtay yani familkiin u gurteen Kenya amal Ethiopia amal Djibouti amal u gurteen so qofkaas amal ay u baahan yihiin hadii address wala wadan oo kala duwan ku kala noolaatay ku qormeeshan ku cadeey hadii hore ugu nooleed Soomaaliya mise Kenya ugu nooleed ku cadeey meeshan hadii aad wiligaan dalka meel ugu bixin aad dalka joogtay
meeshaan noo iskale yani wiliga kuma noolaan meel kale address kana ku noola yani wiligi hadan aan ku noolay so meeshaan noo dheh then meeshaan ay imaatay telephone numberada ku qoro 25261779548 tusaale ahaan kulli idin siinaya so primary phone number telephone numberkaaga saxda ah ku qoro haddii telephone number kale ay haysatid waa gelin kartaa hadaadan lahayn does not apply iskale haddii meel aad ka shaqeysa telephone number uu jiro aad leedahay haddaa haysid numberka sidoo kale ku qor haddaadan haysanin does not apply iskale wax problem kaaga imaanayso so meeshaan lawa uu imaano have you used any other telephone number during the last 5 years telephone number kale ma isticmaashay sanadihii 5 sano ugu dambeeyay haddii aad isticmaashay haadeh oo telephone numberadaasi geli meeshaan telephone numberkaasi geli ku dar haddii mid kale u baahanteen marka saas ay u soconay laakiin hadaadan lahayn telephone number oo telephone kan awliga isticmaal jirtay no iskale yani 5 sano ugu dambeeyay telephone number kale ma isticmaalin then waxa soo har email address ka geli email address ka waa ali abdi1545@gmail.com gmail kayga waa kay email kay waxa kaloo inoo weydiin have you used any other email address during the last 5 years email kale ma isticmaashay muddooyinkii 5 sano ugu dambeysay hadda isticmaashay haadeh marka hadhayd waxa way section kale ku siinay oo ku dirtid email kaas kale ku qortay hadii aadan lahayn wiligaan as email kan isticmaal jirtay waxa iska dhahdaan no so waxa ku soo social media meeshaan waxa way hadii aad isticmaashay Facebook TikTok Instagram Twitter waxyaabahaas oo meeshaan ku buux maxaa isticmaashaa meeshaan hadda waxa isticmaalaa ka soo qad Instagram then wixii ka baahan Instagram ka magaciisa Ali Abdi Allah Instagram kay hadii wax kale aad leedahay ku dar mid kale wax kale ma jira aad isticmaashid waa ku daray yani ilaa i Facebook-gaaga sheegay mesela Facebook-gayga Ali Abdi so saasay u soconaysaa sheekada saarjana way elefantin other social media wax kale aad isticmaasho ma jira other social media do you wish to provide information about your presence on any other website or applicants to have used within the last 5 years to create or share photo video status waxaan hadii social media waxyaabo kala hor oo isticmaali jirta sawiraantada waxyaabahaas oo soo share gareyn jirtay yani ma jiraan yani waxyaabo noocaas mesela YouTube amal waxyaabahaas ma leedahay hadii aad leedahay hadii aad lahayn ma iska dheh waxa problem ma jiro then xarajana qaybtan isla faanay waxaan u gudbaynaa qaybta xigta qaybtan waa meeshii aad hadhow marka dalka Mareykanka aad tagtid yani guriga aad ku digileed addresskiisa ciwaankiisa iyo sidoo kale addresskan waa meesha kugu soo dir lahaayeen sharcigaaga hadhow marka aad tagtid meesha dalka Mareykanka insha Allah waxa waa fahantaan rajaynaa marka kullay hadii aadan formkani akhbaaradkiisa oo dhameysan wali aan fahmin video ka sameeyay yani formkan waxyaabaha laga baahan inaad si diyaarsatid intaadan formkan aadan buuxin waxa kamid ah inaan sheegay inaad heshid addresskan qof inaad heshid waa dalka Mareykanka ku nool ciwaankiisa suuq qaadatid walaalkaaga walaashaada qaraabada wixii rabta ahaato marka address inaad heshid muhiim waa addresskan inaad heshid isku day fadlan waxa way muhiim ku yahay laantiis kuma soconayso so is your mailing address the same as your present address yes then waxay gelinaysaa qofka magaciisa qofkaas yani guriga iskale yani addresskaas qofka iskale name of the person currently living at address addresskiisa qofka hadda ku nool oo iskale qofka ku digaysa addresskiisa magaciisa geli magaciisa waxa Mohamed Yusuf Ali then addresska qofka uu ku soo diray saxda geli marka meeshan US straight address line 1 US straight address line 2 kala qoran waa laba address yani meeshan waxa sameeynaa qofka addresska uu ku soo diray sidiisa copy u soo dheh meeshan ku qor marka inaad addresska kala goolin oo half inaad ku qortid half inta ku qoran meeshan waa optional waa yani waa ka tagi kartaa hadaarto buuxin kartaa
oo qori kartaa hadii aragtid waa ka tagi kartaa marka address kala half inta qori lagu wareer lahaa addresska hal meel ku qor meeshan ku qor marka ani addresska liisoo siiya waxa way 124 New Jersey Mac Street addresska liisoo siiya sidaan uu egyahay macna waxaan kulli tusaalanaysiina meesha addressi akhbaar sax ku qoray markii fahantiin isku dayna fahantiin oo baahanay waxaan sida u shaqeynaa systemkan and city New Jersey why state ka tirsantahay New York ka tirsantahay New York and New Jersey inta state ka waa New York why so zip code ka qofka asaa waxaan akhbaaradkan ku soo diray qofku fahmi kara kulay and zip code kiisa waxa waaye ka soo qad 304 soo kale telephone number qofkaasi then marka buuxisid akhbaaradkiisa su'aashan fiiri is this address where you want your permanent residence green card mailed address kan ma waxa u rabtaa yani addresska in lagu soo diro u baahan tahay green card lottery green card yani green card ka sharciga meesha marka aad tagtid Mareykanka ma kana u baahan tahay in lagu soo diro emailka yani sharciga lagu soo diro hadii u baahan tahay isla addresskan haade hadii aadan rabin waxa dhahaysaa no then wuxuu ku soo siinaya option qayb ku soo siin doona uu ku dhihi doono buuxi addresska oo lagu soo diray meeshan ku geliya lagu leeyahay marka idan waa sidaas hadii aad u socotid yani guri aad ku degi doontid laakiin gurigaas aad ka wareegsan doontid isla muddo oo addresskaaga lagu soo diri doonin kaas oo ay u baahan tahay address kale marka address kale waa gelin kartaa meeshan sarjana waa faanta laakiin maadaama aan u baahnayn addresskan le aan degnaani doono waxaan lahaa yes meeshan aan lagu soo diri doono addresskii then waxaan u gudbaynaa qaybta family bal haddaan isla fiirino qaybtani waa qaybtii lagaaga baahnay inaad ku qortid akhbaaraadka waalidiintaada yani hooyadaada aabahaaga magacooda oo dhameystiran taariikhday dhasheen magaaladay ku dhasheen wadankay ku dhasheen in ay nool yihiin marka waxyaabo la mid ah waxaas ku weydiinayeen haddii aan isla fiirino aan ku bilowno magaca fadlan meeshaan iska taxadir magacyada hadda meeshaan given names ku qoran waxaa gelisaa saddexda magac ee aabaha uu leeyahay meeshaan surname ka ay ku qoran tahay waxay gelisaa magaca afraad ee aabaha haddii aabaha la dhaho mesela Ali Muhammad Abdullahi meeshaan geli magac kale afraad oo asaga aboobihiisa dhalay qofka dhalay asana geli sababtoo hadhow marka aad soo qaadan doontid warqadan police certificate ka warqadan oo CID ka soo qaadan doontid oo u diri doontid KCC warqadaas kuwaas waxay ku soo qor doonaa ilaa iyo 5 magac gaaraysa magaca aabaha ilaa magaca afraad oo aabaha ay ka baahan yihiin marka iska taxadir hadhow intaana hadan kuma qorin oo yani hadda kuma qorin oo hadhowna warqadaas magacaas duu ku soo baxo yani magacay oo extra imaanay yani oo dheeraad ah marka sida saas u dhicin hadda magaca oo saxan oo aabahaaga ku qor mesela magaca aabi waxa lahaa Ali Muhammad Abdullahi then magaciisa kale oo yani qofkan Abdullahi qofka sii dhalay aboogiisa qofka sii dhalay Hassan ku qor sababtoo hadaad ku qorin oo hadda do not know hadhow warqadan CID da ku soo qaadan doonto way ku qornaan doontaa kuwaas ma ka yeelayaan yani in magaca aabahaaga oo yani oo Muhammad Abdullahi bisina dhaafan ilaa magac kale oo afraad ay u baahan yihiin marka fadlan ku dar magacaas taariikhda dhashada taqaanid waxa way problem ma lahan qor like hadaan aqaanin ma aqaanide then magaaladu ku dhashay aabahaaga sidoo kale waxaan waajib ma in aad ogaatid macnaha inay yani ku qortid laakiin hadaad taqaanid oo ilaahay ku leeyahay yani iska qor like hadaan garanaynin waxa way iska daa so since aniga hadda aan garanayo oo ku qornaa magaca aabihiga wadanka magaalada ku dhashay oo ku dhashay Kismaayo
magaaladu xaafadda ugu sii dhashay suuqa weyn wadanka Soomaaliya dabcan. Okay, aabaha ma nool yahay? hadduu nool yahay haade meeshuu ku nool yahay adreysadii wixii laga rabo. hadduu nooleen waxaa may iska dheh. taariikh sanadku dhashay maxay waaye? sanadku dhashay geli sanadku yani uu dhintay, wuxuu dhintay 2005. so magaca hooyadeeda soo hartay iyadana isla sidii oo kale. magaca hooyada hadii la dhaho ka soo qaad Fatuma Ali Yusuf Abdi. magaceedu saddexan saddexda magaca oo hooyadoodu dhameystiran plus magaca awowga ku dar. waqtiga dhashada hadii taqaanid ku qor, hadii aqaanin ma aqaan iska dheh. magaalada ku dhashatay Mogadishu. waxyaana kale iskaga tag xaafada uu sii dhalatay waxyaabahaas ku baahan. country waxyaabaha aniga aan ka booday aan ka tagay sida hadda oo kale midaan doono no aniga aan garanaynin. adiga hadaad garanaysid ku qoro, yani aniga hadaa ma garanayo ku qorta, adigana ma garanayo iskaga qornay. hooyada ma nooshahay? hadee nooshahay ha, hadii ay nooleen maya. waxa waa sidaas, sanadkay dhimatay ku qor. hadee nooshahayna waxa garanaysaa sidaas u qoraysaa. okay, qaybtan waa isla dhameeyay, bal qaybta xigta aan u gudubno. okay, hadii aan u gudubno qaybtani waa qaybta inoo xigta. wili waxa socdo waa akhbaaraadka family-geena gelino. so meeshani wixii inoogu baahan yihiin waxa waaye waa hadii jireen xaasas hore oo dulahay. meeshan wuxuu ku qoran fadlan meeshan ku cadeey xaasaskaagii oo dhan, yani kuwa hadda qabtid, kuwa hore u qabtay kala tagteen, including ku dara loo dhahe kuwa dhintay hata kuwa dhintay ku dar. hadii jireen xaasas hore u leed oo dhintay fadlan ku dar. so hadii aad leedahay meeshan ku cadeey. so waxay ku dhaheen ma jirta yani previous spouses wax hore xaasas hore oo dulheed ma jirta. hadii jireen haade then akhbaaraadkooda ku qor meeshan. waxa waaye magacoodii oo dhameystiran, taariikhdii ay dhasheen, taariikhdaad isguursateen, xilliga guurkaas uu dhamaaday aad kala tagteen, how was your marriage terminated, sidee yani ku kala tagteen gurkiina ku cadee meeshan. ma furtay ma dhimatay, yani meeshaas sidoo kale ku cadee. yani wadanka yani uu guurkaasi oo uu ka dhacay oo ku kala tagteen wadanku waa yani markaas qofkaas aad kala tagayseen wadanka markaa aad joogteen wadankaas ku cadee. marka saarjeena waa fahanteen. so hadii ay jiraan yes dheh, sidaan sheegay akhbaaraadkan qor. hadii jirin waxa iskaga tag. number of previous spouses meeqa xaasa la hel iyagana sidoo kale tirada inta aad guursatay ku qor meeshan. hadii 4 5 6 10 waxa soo guursatay meeshan ku qor. marka su'aashani rag iyo dumar bay qosaysaa, yani nin rag kelima mu ku socdo, yani nin iyo naag labadiina bay ku socdo. hadaa xaasas hore u leed qoftaana dumarka ku qor meeshan. hadii qofkan rag ee aadan xaasas hore u leed sidoo kale adigana ku qoran. maadaama aniga aan lahayn waxa way maya, yani single ah yani wiliga ma guursan. marka saarjeena qaybtan waa isla fahanay. okay, qaybta xigta waa caruurta. okay, meeshan caruurta iyadana waa isla meeshii. su'aasha ku weydiiyana waxay tahay do you have any children? hadii caruur aad leedahay fadlan yes dheh, ha dheh, akhbaaraadkooda geli meeshan. cunuga koowaad magaciisii, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, wadanka. does this children live with you? cunugan adig miyuu kula noolyahay? haduu kula noolyahay haduu kula noolyahay maya, uu kula nooleen maya. is this children immigrated to US with you? immigrating cunugan mi adigu rabaa inuu kula aado, yani is immigrating adigu rabaa inuu kula hajiro oo US yani kula aado wadanka dalka Mareykanka. haday yes tahay ha geli, hadii maya ay tahayna may geli. marka saarjeena waa fahanteen.
so bal hada isla buuxino do you have any children waxa rumeeyay aniga malihi ma yaaniya sheekadan halaas ku dhamaatay qaybtan sidaas ugu dhamaatay laakiin haday jireen fadlan qabaaraadka caruurtaada geli yes deh then uniga geli koowaad akhbaaradkiisa oo dhameystiran haday caruurtaada sii jiraan meeshan sii taawo add another ay ku qoran tahay ku dhufo marka ku dhufatid qayb kale ku sii geeni doona uniga labaad child 2 uniga saddexaad ilaa iyo inta caruurtaada akhbaaradkooda ay ka gelinaysid marka sidaas ay u soconaysaa saarjeena waa ila fahamtay qaybtan maadaama aniga wax caruur aan lahayn wiligan aan guursan ma yaan leeyahay wax caruur mali ilaahan ilo soma I hope meeshan waa ila fahamteen okay qaybta ku xiga hadii aan u gudubno okay qaybtani waa qaybtii previous US travel information يعني waxay qusaysaa يعني dadka hore u safray Mareykan u tagay iidadan wili u tagay يعني wax quseeyo يعني safarkaaga wiliga Mareykan ma tagtay waxyaabaha soo su'aalaha waxay ku weydiin doonaan meeshaan isla fiirno provide the following previous US travel information provide complete and accurate information to all questions that require an explanation fadlan meeshaan ku cadeey aan hadii jirin yani safra u safartay dalka Mareykanka ay kaaga baahin marka si taxadir leh u fiir su'aalan muu maleynaa yani qof farso Mareykan u tagay yani inuu nagu jiro hadii ku jiro fadlan su'aalan si fiican ugu jawaab maadaama aniga wiligeena Mareykan tagay hay su'aalan oo ka jawaaba hada tag Mareykan wiligay su'aalan hayandi hada ana tagina ma yadi so su'aashka wadadan fiirino have you ever been in US wiliga yani dalka Mareykan wili ma tagtay hadii aad tagta hay geli yes hadii aan tagin may aniga may wiligay ma aan tagin may gashanaya have you ever been issued a US visa wiliga visa Mareykanka maluusi oo passportka lagu dhuftay hadii lagu dhuftay dabcan haade hadii lagu dhufanina may okay have you ever been refused a US visa may waa sidaas u fuuday wax weyn maan hadii ay jireen have you ever been in US wiliga Mareykanka dalka Mareykanka ma tagtay hadii aad tagtay ay jirto haade okay then akhbaarada laga baahan ina meeshan ku buuxiso meeshan geli aniga waxa wiliga maalinta Mareykan waxa leeyahay marka maya qaybtan sidaan rajayna waa ila fahanay bal qaybta ku xigta aan u gudubno qaybtani waa qaybtii inuu u baahnaa in aan gelino hadii jireen shaqooyin hadda aan qaban shaqooyin horaan u soo qabanay waxbarashadeeni waxa waa akhbaarad quseeya anaga nafsadahanteena yani waxbarashadeena shaqooyinkeena waxyaabahan soo qabanay okay meeshaan waxa leen note ugu provide the following information concerning your current employment or education fadlan akhbaaradkan soo socda meeshaan ku caday adigoo u tixgelinayo current employment yani hadda shaqooyinka aad qabanaysid iyo waxbarashada hadda ku jirtid su'aashku waxa waaye primary occupation waxa hadda aad qabatid sheeg waxa right now hadda ahaysid aad qabatid aad ka shaqaysid meeshan ku caday hadda dhakhtar tahay dhakhtarnimada ku caday hadda arday tahay ardaynimada ku caday waxa qabatid shaqada rabtid ku caday meeshan laakiin akhbaaradii ka baahin maadaama hadda ani aan ahay arday waxaan gashanayaa student ardayna ahay then marka ardaynimada meeshan arday ahaadeed hadda waxa qabatid waxay kaaga baahin provide the following information akhbaarad waxyaabaha soo socda meeshan ku caday present employment or school name hadda iskuulka dhigid arday aan ahay Soomaan iskuulka jaamacadda waxa dhigitid meeshan ku caday so hadda waxaan dhigtaa tusaalahan Simad University jaamacad Simad dhigtaa intee ku taala jaamacad Simad meel ku taalo ku qor ay ku taala Taleex kilometer 4 so street option wax iska daa address sida yani tusaale ahaan meeshaan iska geli magaalada ay ku taalo Mogadishu okay state-ka I don't know waxaan ma garanay kuwani iska daa wax problem kaaga imaanay
magaaladii wadanka ku taalo dabcan Soomaaliya ku taalo sida so sidana u buuxinaysa oo alaga baahan yahay. Then do you have other occupation wax shaqo kale ma qabatay ay jirto haddii jirto ha geli then akhbaaradka ku weydiiyeen buuxi haddii san jirin maya waa sidaas u fuuday sheekadan. So su'aasha labaad noo xigto in which occupation do you intend to work in US yani marka dalka Mareykanka aad tagtid oo fiisa ay heshid ilaahay duu ku saalo insha Allah maxaa rajaynaysaa inaad ka shaqaysid yani waxa rajaynaysaa ma jirtaa inaad ka shaqaysid oo aad ku hamweyn tahay yani ma jiran haddii jiran ha ku qor waxaa rajaynaya inaan noqdo computer scientist ina computer science yani system kaas ka shaqeeyna software engineering fiicana noqdo shirkada Apple Google oo shaqeey saasaan rajaynaya. So waxa rajaynaysid oo aad ku hamweynta adiga garanay marka sida rajaynayna qaybtan waa isla aragnay then waxaan u gudbaynaa qaybta inuu xigto. Okay qaybtan inuu xigto iyadana waxa waaye waxay qusaysaa oo inuu wali baahinaan gelino previous yani waxyaabii shaqooyinka horaan u soo qabanay hadii jirtay so su'aasha koowaad inay weydiiyeen waxa waaye were you previously employed shaqaale hor mu ahayd haddii aad u ahayd ha dabcan ha geli haddii aad u ahayn ma wiliga aad shaqeynin maya laakiin haddii jirtay aad shaqeysay ha de teen akhbaaradkan geli ka baahin so simple sidaas u fuuda wax weyn maaha so aniga wiliga shaqaale mar mu noqonin so then su'aasha ku xigta waxa waaye have you attended any educational institution at secondary level or above ma jirta yani have you attended wax ma jirta school aad dhigatay oo secondary level or above yani wax dugsi sare ka koreeya ay jirin ma jira haddii jirtay dabcan ha yani hadda ka soo qaad jaamacada dhigataa laakiin hore waxa u soo dhameys dugsi sare so qaybtan waxay gelinaysaa yes leedahay have you attended any education institution at secondary level yani or above yani wax dugsi sare ka sore dugsi sare ilaa iyo wax ka sare heer ma gaarto waxbarasho yani wiliga ma soo dhigatay meeshan waxay gelinaysaa haya leedahay dugsiga sare aad soo dhameysay aad ku qoraysaa meeshan aad gelinaysaa then haddii hadda hore jaamacada u dhameysay jaamacada gelinaysaa haddii waxa hore u soo dhigatay aad meeshan ku cadeynaysaa aniga hore waxa soo dhigtay school aan soo dhigtay ilaa iyo heer shahaadaan ka qad iskuulkayga soo marka meeshaan ku cadeynaa highest level of education completed how high school diploma meeshaan iska fiiri meeshaan waxa ku qoran high school no degree dugsi sare dhameeyay laakiin shahaado ma haysto shahaado ma aan qaadanin sidoo kale meeshaan waxa ku qoran high school diploma yani dugsi sare dhameeyay oo waxaan haystaa shahaado dugsi sare vocational school ayaan dhameeyay university no degree jaamacada dhameeyay laakiin wax shahaado ma qaadanin oo ma haysto iyo jaamacada dhameeyay oo shahaadana waa haystaa so adiga garanay hadda aniga waxa meeshan gelinaya dugsi sare hore u soo dhameeyay shahaadana waa haystaa high school diploma ayaan doornaa okay waa fahantiin sarjeenay number of education institute attending iskuulada aad soo dhigatay meeqay gaareen haddii jireen iskuul weyn yani iskuulkaagii brayfadaha soo dhigata waxyaabahaas dhan meeshan ku caday midna la soco haddii meeshan geli laba iskuul soo dhigto waxay iga baahan yihiin labadaas iskuul akhbaaradkooda inaan meeshan ku buuxiyo iga baahan yihiin haddii hal iskuul soo dhigtay halka iskuul ee akhbaaradkooda iga baahan yihiin aniga maadaama hal iskuul aan tagay hal iskuul ayaan dooranay maadaama hal iskuul aan dhigtay aniga so then meeshan waxaan ku cadeynay iskuulkii magaciisa ayaan meeshan ku cadeynaya iskuulkan soo dhigto wuxuu ahay al imra school intuu ku yaalay Taleex kilometer 4 ayuu ku yaalay then optional loo iskaga tag qaybtan oo ka tag kartaa daarabtan oo buuxin kartaa magaalada ku yaalay Mogadishu waxaan time umahay state province meeluhu ku siyaal postal code country
dabcan Soomaaliya waxaan meeshaas ka dhiganaysa muxuu ahay waxyaabaha ka dhiganayna meeshaas waxay ahayn iskuuladeena yani Soomaali ahaan markii la dhaho waxa way yani wax maado toos takhasus iskuul muu dhigano ma ka dhigano yani waxaan ka dhigano yani iskuulada waxay bixiyaan wax general la bixiyaa marka hada iskuul diimeed soo dhigtay meeshan ku qor wax diin quseeyo soo dhigtay religion something about religion hadii aad soo dhigtay waxyaabo la quseeyo kale yani iskuulada aan sida wax diin iyo kubo general science ah u badan yihiin marka meeshan waxa ku qoraysaa iskuulka soo dhigay yani inuu ahay science yani general ahaan yani general school inuu ahay general school inuu ahay yani general science aan soo dhigtay meeshan ku cadeynaya aniga general science so waxaan leeyahay general science yani course of study waxaan soo dhigtay maxaa iskuulka waxaan ka soo dhigtay course-aan soo dhigtay waxa general science yani science guud aan soo dhigtay so iskuuladeena ma waxay bixin degree diploma certificate dabcan waxay bixiyaan iskuulada iska siya certificate okay iskuulkaas xilliga tagtay oo code attendance date of attendance from yani xilliga laga soo bilaabo xilliga waxa ay ahaayeen xilliga wuxuu ahay 2000 taariikh 6 bishii koowaad no bishii koowaad August bishii 8 and 2010 ayuu ahay iskuulkaas xilliga dhamay xilligu ahay taariikh 7 bishii 6 2017 ayaan dhameeyay iskuulkaas marka sidaas u buuxinaysa haddii jir iskuulka la soo dhigatay fadlan add another dheh then akhbaaraadka buux lagaga baahan yahay sida arjeenay waa ila fahanteen soo qaybta ku xigta aan u gudubno okay weli waxa inoo socdo qaybtii waxbarashadii iyo shaqooyinka soo qabanay inaan buuxino weli qaybtii inoo socoto soo qaybtani waxa way su'aalo way qaybtani waa su'aalo aad u muhiim ah inaad iska fiirisid loo baahan yahay si taxadir leh meeshan waxay dhan ku caday yani waxyaabaha soo socda meeshan si saxan yani waxyaabaha shaqooyinka soo qabatay waxyaabaha ka soo qaadatay waxbarashadaadii waxyaabaha soo dhan fadlan si taxadir leh meeshan ugu fiir su'aalan yani iska fiir meel haal laga rabay may hadin meel may laga rabin haadin kulli adiga aqaan nafsadaantaada waxyaabaha su'aalan ay ku qusayeen soo aniga waxaan ugu jawaabaya aniga nafsadaanteeda islaan u arko iyo nafsadeeda sida ku tay su'aashan so su'aasha koowaad waxa waaye have you traveled to any country or regions with the last 5 years weli mu safartay 5 sano ugu dambeeyay mu safartay yani wadamo kale gobol kale meel kale mu safartay hadii ay jirtay dabcan ha hadii ay jirin maya hadii maya aad dhahdid oo laakiin ay jirtay inaad u safartay mesela dalalkan u dhow Kenya Ethiopia Djibouti maya dhahday laakiin wadamadaasna u safartay kulay baasaboorka way arki doonaan fiisooyinkaas ay arki doonaan marka waxa beent iska daa hadii jirin aad u safarto wax problem ma lahan ha dheh den marka hadadid waxa waaye waxay ku weydiin doonaan akhbaarad saar jeenay marka meeshas aad tagtid yani marka safaarad tagtid ku weydiin doonaan sabab yani wadankaas waxa ka tagtay sababta u tagtay waxaad qaban leeyd laakiin wiligay maanan u safrin wadan kale waxa dalkiiga jooy 5 sano ugu dambeysay meel maanan safrin waxa leeyahay maanan u safrin then su'aasha labaad have you ever served in the military wiligaya militariga marka u shaqeysay yani shaqaale military ma noqdo dawladda ma u shaqeysay hadii jirtay hadii ay jirin maya ani wiligay maanan military ka maqaan mana ka qayb galan wiligay maanan u shaqeynay so and have you belonged to contributed to or worked for any professional social or charitable organization wiliga yani ma lahaatay mise muu shaqeysay yani hay'ado oo hay'ado yani wax gargaar bixiyo bulshada shaqooyin bulsho ma qabatay waxyaabo professional shaqooyin aan qabatay ma jirtaa
mis adiga aan lahayd ma jirtay hadii jirtay ha hadii ay jirtay maya ani ma jirin wax noocaas ina qab shaqooyin noocaas so su'aasha labaad ee xigta waxa waaye do you have any specialized skills or training so ma jira yani wax skill xirfad ay taqaanid oo aad ku fiican tahay sida nuclearka biology chemistry-ga waxyaabahaas ma jira wax experience khibrad fiican oo leed hadii ay jirtay ha hadii ay jirin maya ma jirto ma believe waxaas so meeshaan waxa ku qoran have you ever served been member wiligaanba ka mid noqotay mana ku lug lahaatay yani qolooyinkan yani waxyaabaha rebel group yadan wallahi ma garanay su'aasha ma fahmin laakiin waxa waa aniga ma jirto wilin wax noocan wiliga maanan noqonin kamaanan qayb galin maya can you speak or read languages other than your native language luqad kan ma jirtaa marka laga reebo luqadaada hooyo oo aad ku hadli kartid oo aad qori kartid ma jirtaa hadii jirta ha meeshan ku cadeey qor meeshan luqadaas Arabic English Turkish Swahili luqada taqaanid oo aqrin kartid oo aad qori kartid ku cadeey aniga waxa leeyahay marka hadii jirto waxaan aqaan English Turkish and Arabic intaas aqaanay leeyahay marka sidaas waa ila fahanteen aan umaleeyo su'aalaha si gaar ah iskaga fiiri fadlan so waxaan rajaynayaa inaan dhammaan qaybtii waxbarashada iyo shaqooyinka soo qabanay qusiisay waxaan u gudbaynaa qaybta inoo xigta oo security and background okay qaybtan hadii aan galno iyadana waxay quseysaa security and background yani meeshan waa qayb iyadan aad u muhiim ah waxay sababi kartaa in fiisahaaga lagu diido meel yar ha dhahdid bis email yar ama ya dhahdid marka si gaar la iskaga fiir su'aalahani insha Allah marka su'aasha koowaad waxay tahay ay ku weydiinayaan do you have a communicable diseases of public health significance such as tuberculosis yani ma jira wax cudurada faafa sida TB camal ma qabtaa ma jira hadii ay jirto waa kay hade hadii ay jirin caafimaad qabtid maya laakiin maya iska dheh meeshan mayda fadlan xawaayo cuduradan faafa halis waaye waxyaabo fiisaha dadka loo diiday kamid yahay caafimaadka wax soo mar lagu dhahay sidaas kamid ah so su'aasha labaad ku xigto and do you have documentation to establish that you have received vaccination in accordance with US law ma jira wax yani vaccine yani tilaal asoo qaadatay sida uu qoray yani sharciga dalka Mareykanka ma jira meeshani haade fadlan haade sababtoo inta aadan interviewga galin fiisaha ay ku siinin waxa mari doontaa caafimaadkaas ay ku jirtaa marka baashan tilaalkan markaas ay soo qaadan doontaa marka caafimaadka soo maraysid marka aad meesha aad tagi doontid oo wareysi kuula yeelan doonaan marka waxa way jawaabtaada ha way horan haya uu soo dhahdo weyn ku weydiin doonaan ma haysta ha way marka warqada caafimaadka iyo tilaalada aad soo martay ayaa tusaysa marka mayaha isku dhihin mayaha dad isku dhahdid marka meesha tagtid waxa dadkan inay problemka ay imaata laga yaabo marka jawaabteeda ha dheh meeshan sida arjana waa elephant sidoo kale meeshan okay su'aash kale ku xigto do you have mental or physical disorder ma jira yani wax problem maskaxiyan ma qabta maya ma qabo are you or have you ever been drug abuse or addict wili yani alcoholist ma noqotay ma jirtay maya marka meeshan hal wax ogaada qaybtan oo dhan security and background health and medical and health criminal security 1 security 2 immigration law violence intan kuwaan oo dhan jawaabahan oo dhan fadlan maya no iskaga qor marka laga reebo midan oo vaccine yani talaalka bis ha dhaho meeshani hadda ha kuwan isku dhayd waxa way su'aalo waxa ku jira yani
oo ma jira yani waxyaabo dambiye ma soo gashay, dad ma soo dishay, terrorist yani kuwa argagixis ma la soo shaqay. su'aalo noocaas oo su'aalahan dhan marka si gaar la iska fiir ha iska dhihin fadlan. waxa way meeshan su'aashan oo ah do you have documentation to establish that you have received vaccination in accordance with US law. midani oo ma jirta yani wax tilaal ah soo qaadatay, midan bis ha dhaho sida rajayna waa ila fahanteen hadalkii meesha uu qaybtan oo dhan. qaybtan waxaan guduud karana ujeedid in qaybta ku xigto oo criminalka u gudubno. qaybtani waa isla meeshii kuwii aan idin sheegay maya iska idin dhahay way ay kamid tahay. marka su'aalaha waxa kamid oo kale have you ever been arrested, wili ma lagu xire, wiliga ma ku dhacdo wax dambiye ma gashay, يعني ملو محكمة ملوس استاجي مايا. تفضل مايا اسكري سؤالان ادو خالص يا واد. have you ever violenced engaged waxyaabo xumaatooyin sharci darro iyo ma ku dhaqaaqdo ma sameysay, wiliga ma lagu ganaaxay maya. su'aalana fadlan maya never, wiliga maysan dhicin. su'aalahan oo dhan fadlan maya iska adigan iska aqri, maya ha iska dhihin, sidoo kale iska fiiri haddii jirto waxyaabo xumaata soo dhaqaaqday oo soo sameysay oo CID da farahada waxaas ay heesay ay jirto fadlan meeshan ku caday. marka maya so take care. maya wili waxaa leenahay maya no waxaan kasoo tagna ma rajeynayo. then qaybta labaad aan u gudubno. maya qaybtii way socotaa su'aalihii sidaan ku dhahay fadlan qaybtan oo dhan security ilaa iyo meeshani qaybtan ilaa iyo fadlan maya iska dheh, su'aalahan iska aqri. so maya ay su'aalo halis ah hadda tan oo kale ka soo qaata. have you ever been removed or deported from any country, wiliga wadan kale ma laga soo tarxil yani ma laga soo buri maya. haya isku leedahay waxa way baxar weyn way marka sidaas ula soco. then qaybta ku xigta then wili su'aaliya socdo maya okay maya alright. then wili way socotaa maya no fadlan su'aalahan adigan iska aqri, su'aalaha fadlan iska aqri. then meeshan waa dhameynaa the security iyo backgroundkan. waxaan u gudbaynaa social security number, qaybtaas insha Allah u gudbaynaa. okay qaybtani iyadana waa meel aad u muhiim ah waaye ina iska fiirsada loo baahan yahay. maya iyo ha waxa way iskaga ordid maahan, si fadlan su'aalahan si gaar ah iskaga aqri. okay social security number waa lambarka yani sharci lagu siin doono ID kaarka lambarka ku qornaan doono oo Mareykanka aad ku joogi doontid waa lambarkan. marka social security numberka waa lambarka aad ku muhiim fadlan si gaar ah iskaga fiir. meeshan meel ha laga rabi maya iskaga qorin fadlan. okay su'aasha koowaad aan ku bilaawno waxay ku dhaheen have you ever applied for a social security number, wiliga hormo apply garay social security number may wiliga hormaano apply garay waxa markii ugu horeysa aan apply garayna. marka have you ever applied for social security number, wiliga hormo apply garay samay maanan apply garaynin maya dheh meeshani. so do you want social security administration to issue a social security number card, ma u baahan tahay in yani social security number lagu siiyo? ha waa u baahanay in la siiyo. ha dheh meeshan may hadaan kuma siinayaan hayneedo waxa reject lagu siina visa fadlan ha dheh meeshan. okay do you authorize
disclaim information for the marta yani departmentiga social security in homeland security social security numberka admission yani ay sameeyeen ay diiwaangelin ku sameeyeen ma u baahan tahay adiga meeshan haadhe iyadana okay meeshan waxa ku qoran arag si gaaran iska fiiri su'aashan ay qusaysaa if you answer is no to this question you will not receive a social security number inta kugu cadin hadee tani yani su'aashani hadda aniga haadhay hadda yani maya ay dhahdid ay ku dhaheen if you answer no hadii jawaabtaada ay noqotay dhahdid no to this question su'aashani macnaheedu waxa way wax social security number kuma siineyno way meeshani kugu cadin marka fadlan haadhe meeshani sidoo kale meeshani oo social security number in lagu siimo u baahan tahay haadhe waxa meeshani iyadana adeeg ku qosaysa have you ever applied for social security wili social security halmu apply gareysay hadaa u apply gareysay ha adiga garanay kulli hadana u apply gareyn oo markii ugu horeysay ay tahay green card ku guuleystay oo aad Mareykan u socotid fadlan ma yadhe sababtoo hormaada u apply gareyn meeshan ha so meeshani hadda waa isla dhameene waxa formka hadda inta ugu muhiimsanayd wixii dhan waa soo wada dhameene then review aan bal afiirin review geysa formkan yani asoo wada kooban aan wada eegno okay gabagabadii ayaan imaanay waa qaybta reviewga yani meeshan waa wixii aan soo wada qornay oo dhan formka marka soo bixin meeshan uu na keenan doona then meeshan ayaa wax xulbo ku ogaani karnaa oo wix hadaan qaladna wax diiwaan u sixi karnaa hadii wax ay naga saxiyeen hadii wax naga qaldiin meeshan ku ogaani karnaa kasoo qaada deemaad waxay ka qaldiin aartid inaad saxid then waxa leedahay meeshan edit ay ku qoranta ku dhufanaysa dib ayaad u saxaysaa waxa sidaas u fuudaa waxa way oo adag ma bahanba marka sida arjeenay waa isla faanay so formkan sidaan ayuu noogu dhamaaday oo halahan way yani aniga hadda mar rabo in aan diro oo submit in aan dhaho mar rabo marka waxa way meeshan ku ekeeni doona insha Allah kulay diritaankiisa wax adag ma waxa way halaan hadii abuuxisay Allah dhimana diritaankiisa adiga dhameystirnay so insha Allah waxaan ku rajeenayaa insha Allah guuli barwaaqo hamidaada iyo amuraha leedin Ilaahay ku saalo jazakumullahu khairan hada videoga ilaa inta soo daawanaysay jazakumullahu aad qaali ugu taagteeda insha Allah waa inoo markale videoga xiga jazakallahu khairan